moobilada ay isticmaalaan madaxweynayaasha caalamka. Waqtigii hore, madaxweynayaashu waxay isticmaali jireen telefoonno aan security adag aan lahayn, laakiin markii ay soo baxday in la basaaso telefoonnada gacanta ee madaxweynayaasha, hadalladoodana la dhagaysto, waxay bilaabeen in ay doortaan telefoonnada ugu security-ga fiican si looga hortago in la jabsado. Waxaynu soo qaadan doonaa moobilada ay isticmaalaan madaxweynayaashaasi. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama waxa uu muddo badan isticmaalayay telefoonka nooca BlackBerry-ga, kaas oo awood badan u leh in uu ilaaliyo macluumaadka ku kaydsan, sidoo kalena caan ku ah in uu ka hortago in la jabsado. Laakiin qoyskiisa oo dhan ma isticmaalaan BlackBerry. Waxaa inanta uu dhalay lagu arkay iyadoo isticmaalaysa iPhone. Hogaamiyaha Jarmalka. Waxay isticmaashaa hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel laba moobil, ka koowaad oo ah Nokia oo ay u isticmaasho arrimaha xisbiga, iyo ka labaad oo ah BlackBerry Sad oo amnigiisa ay gacanta ku hayaan shirkado Jarmal ah oo gaar ah, waxayna u isticmaashaa arrimaha siyaasadda. Madaxweynaha Pakistan Nawaz Sharif. Waxaa la arkay madaxweyne Nawaz asagoo isticmaalaya moobilada iPhone iyo Samsung, laakiin markii dambe waxaa la ogaaday in ay lahaayeen moobiladaas wafdi la socday. Moobilka kaliya ee uu haysta ayaa ah BlackBerry Bold, waxaana la rumaysan yahay in uu u adeegsado moobilkaas arrimaha siyaasadda. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Inkastoo uu hore u sheegay in uuna isticmaalin moobilada gacanta, balse waxaa lagu arkay isagoo isticmaalaya hal moobil wax ka badan, waxaana sawirada qaar lagu arkay isagoo isticmaalaya telefoon Ruushka lagu sameeyo oo la dhaho MTC Galonis oo ku shaqeeya systemka Android-ka. Waxa kale oo lagu arkay iPhone. Waxa uuna caan ku yahay madaxweyne Putin in uu iska ilaaliyo internetka. Madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un. Warbaahinta Kuuriyada Waqooyi waxay daboolka ka qaaday in madaxweyne Kim Jong-un uu isticmaalo moobilka HTC, waxaana caan ah in nidaamka ka jira Kuuriyada Waqooyi uu yahay mid adag. Dadka dega Kuuriyada Waqooyi oo lagu qiyaaso 25 milyan looma ogola in ay isticmaalaan wax ka badan 2 milyan oo moobil, loomana ogola in telefoonadooda ay ku isticmaalaan netka. Waxa kaliya ee loo ogol yahay ay tahay in wicitaan ama message dalka gudihiisa ah ay sameeyaan.